wafdi ballaadhan oo ay hogaaminayaan ambaasatoorro ka socday Switzerland oo ay weheliyaan madaxda sare ee mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose oo loo yaqaano GPLG-ga ayaa soo gaaray magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka waxaana ay kulan la qaateen maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray mashaariicda laga fuliyay GPLG-ga iyo sida ay dawladda hoose uga faa'iideysatay qaabka ay dawladda hoose u shaqeyso iyo wixii ay dawladda hoose qabsatay ee ay ka fulisay cashuurta la tacaalida masiibooyinka iyo saameynta kala cimilada waxaana dawladda hoose ee degmada Gabiley ay ku soo biirtay mashruuca maamul daadejinta ee dawladaha hoose dalka ku soo biirtay 2012 waxaana degmadu muddadaasi gaadhay horumar dhinac walba leh waxaana ay ku guuleysatay inay diiradda saarto sidii loo kobcin lahaa shaqaalaha iyo horumarinta qorshayaasha kuwaasi oo keenay in Gabiley muddo yar gudaheeda ay ku guuleysato inay noqoto dawladda hoose ee ugu adeeg bixinta wanaagsan dawladaha hoose ee dalka marka loo eego sida ay u maamushay mashaariicda oo si toos ah ula xidhiidha qorshaha fog ee ay dawladda hoose leedahay waxaana ay wafdigani la dhaceen sida quruxda badan ee dawladda hoose u soo bandhigtay habka ku salaysan aqoonta qorshayaasha iyo horumarinta degmada waxaana ay wafdigan iyo maayirka magaalada Gabiley kormeer kala duwan ku soo mareen mashaariicaha kala duwan ee ka hana qaaday gobolka Gabiley maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa yiri oo hogaaminayaan laba ambassador oo runtii ahaa wafdi heer sare ah oo nagu soo booqday magaalada Gabiley waxay ka mid tahay Switzerland wadamada caawiya mashruucan loo yaqaano iskaashiga dawladaha hoose si ay u arkaan mashruucii mashaariicdii laga fuliyay GPLG-ga iyo sidoo kale siday dawladda hoose u shaqeynayso iyo waxa ay dawladda hoose iyo ay qabsadeen ay ka fuliyeen cashuuraha marka runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waa ku faraxsanahay inaynu fursadan oo kale aynu u helo inayna soo booqdaan sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Thomas waxaanu yiri waxay ahayd maalin farxad leh inaan soo booqno caasimadda degmada gudoomiyaha iyo tiimkiisu waxay ahaayeen wax aad u cajiib badan waxa halkan laga qabtay ee mashaariicda la wadaago hay'adda GPLG-ga Thomas oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waxa kale oo aan si gaar ah ula dhacay ka go'naanshaha maayirka iyo tiimkiisu inay bulshada u noqdaan qaar la xisaabtama waana mid aad u wanaagsan sidoo kale Thomas oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waxa muhiim ah in bulshadu ay qaadato of people in this district who will have an identity, a legal identity, and who can participate. Wayan Lahachi, Television Qaranka Somaliland, Gabiley.